kulan ay soo qabaqaabiyeen bahda waxbarashada iyo maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa ahaa mid loogu wacyigelinayay bulshada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceeri Gaabo. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Carmo Engineer Maxamed Cali Shire iyo Sheekh Cabdiraxmaan Saciid Bootaan ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan dhismaha wadada isku xirta degmooyinka Carmo iyo Ceeri Gaabo. aynu isku tashano maankeena ha ku jirto inaynu isku tashano wax qabsano markaan u soo gudbo ujeedka ugu weynaa oo shirkan sida aad la socotaan dalka waxa ka bilowday wadooyin markii magaalooyinka dhexdooda la sameeyay laamiyadii oo la ogaaday in la qabsan karo waxa la yiri ma qabsan karaa wadada ka leexata kala bayr iyo magrayda durdur iyo Ceeri Gaabo ma qabsan karaa wadada ka leexata kala bayr ilaa Baargaal ilaa Qandala ma qabsan karaa wadada qarda ka leexata ilaa iyo Ayl ma qabsan karaa wadada ka leexata kala bayr ilaa Buuhoodle يعني ما قبسن كذا وضع كله حتى قلدوق إلى حدود قالكعي إلى قلدوق إلى لام إلى جريبا قرشها ساطعة أما أرضك بكبر لكن هل دولار أما نص دولار جد لسايا لامئة إلى قيام ساعة صعونية وحا أكد فتا أجر كأوليه هي قيمية نفع الدون أوليه هنا قيمية لما كنا يتضبط عن Ceeri Gaabo waxaan ka soo raacay gaari waliba aan ninka la wadana gaari ingeer u ahaa habeen iyo maalin baan soconay mana foga 300 kilomitir ka badan hadii laami lagu xiro 3 saacadood baa la soconay kuwa kale oo la midka oo iyaguna ka leexanaya laamiga oo meelaha kale oo leexanayana waad garan kartaa sida daraadeed jidkan wuxuu daahfur u yahay gobolada fogfog ee rafka ah ee gaari waaga loo yaqaano in loo helo laamiyo ayuu daahfur u yahay sida daraadeed ayaa ummadda reer Puntland isla go'aansatay in ay jidka furto jidadka kale ku xajiso ujeedka iyo nuxurka galabta aynu isugu nimo walaalayaal wuxuu ahaa intaa waxa laga yaabaa inaad ka warqabtiin laakiin in la isgaarsiiyo oo si nidaamiya la isu gaarsiiyo ayaa waxay ka mid tahay qorshaha iyo in wax soo baxaan wuxuu inoo yahay tusaale wanaagsan marka hore sida la sheegay waa sadaqa jaariya oo $1 ama nus dollar oo sadaqa jaariya ku noqonaya oo aad aakhira ku xisaabtato buu noqonaya marka xiga wuxuu noqonayaa waxa adigu leedahay oo intifaacsato adigu waxa leedahay oo aad intifaacsato buu noqonaya tijaabooyinka la soo sameeyay ka hor ama ha noqoto magaalada Boosaaso ama ha noqoto Garowe ama ha noqoto maamulada kale dariskeena tijaabooyinka la soo sameeyay baa waxay yihiin inay dadku wax qabsan karaan inaguna taawaba ka si xaq jiraayo si cad baan u ognahay markii loo fiiriyo magaalada sida uu gudoomiyuhu sheegay inay wax qabsan karaan marka diyaar ma u nahay walaalayaal diyaar ma u nahay inaan halka dollar oo sadaqada jaarida aan baxsano diyaar arinta ma u nahay diyaar ma u nahay in Ilaahay hortiisa dhigano wadada inaan furano diyaar ma u nahay جزاكم الله خيرا لا يهديك أبا المريو إلهي نوحا ويديسانينا إنو إنو أقبلو إنو كريو صدقة جارية إنو نغنو غير بوتلان سوماليا ومدى إسلام كامل كستي جوكتو إنو تسالو نغنو بان إلهي ويديسانينا Zeynab Abshir Geeri oo kamid ah ka soo qaybgalayaasha kulankan ayaa sheegtay inay ku faraxsan yihiin barnaamijka isku tashiga Puntland isla markaasna ay diyaar la yihiin inay ka qayb qaataan wax kasta oo lagu horumarinayo deegaanada Puntland waxaana ay shacabka Puntland ugu baaqday in ay u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wadada rafka ah ee ka leexata deegaanka kala bayr ee aada gobolada Bari iyo Gardafuul oo ay sheegtay in rafaad badan ay ku qabaan shacabka reer Puntland aad baan ugu faraxsanahay bulshada reer Puntland haddaan nahay horumarka wanaagsan ee wadanka lagu dhisaayo
aad baan ugu qayb qaadanaynaa dhammaantaya haddaan nahay carruurtayada haweenka ragga madaxda dhammaan Puntland ha isku tashato sidii loo yiri ayaan ugu tashanaynaa waddankaygana horaan u dhisaynaa waana dhisaynaa aad baan ugu qayb qaadanaynaa ilaa ay waddadaasu ka dhammaato bulshada dhammaanna way u taagan tahay sida ay haddeer idiin muuqataba ay bulshada heeganka ugu tahay aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhawaynaynaa waxaan kala codayadana in la dhiso waddada bari gabdhaha foosha ee la soo qaado dhexday ku dhintaan ha laga qayb qaato sida looga qayb qaadanayo tan ayaa u baahannahay in taasna loo dhiso aad baan u soo dhawaynaynaa aad baan ugu faraxsanahay dhammaantay si kastaba ha ahaatee guud ahaan deegaanada Puntland ayaa waxaa ka socda barnaamijka isku tashiga Puntland kaasi oo lagu horumarinayo deegaanada Puntland Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland degmada Carmo ee gobolka Bari.